كتحرعاي عرنتي مركا تاغن ولا لا تعالى تيمادada marka madaxweyne halkan maanta diyaar waxa kugu ah shaqaalihii caafimaadka iyo hay'adda BSI iyo CARE oo maxay ahayd godob jiiraan ka waday mashruuc weyn oo ah cusbitaal la dhisayo nasiib wanaag dadka deegaanku iyagoo marka hore isku tashaday waa kuwii ku yimaadeen kan cusbitaal baan rabnaa inaan dhisano cusbitaalkii qaybtiisii hore waa tan halkan ka muuqata contribution ku horeeyana aad bixiyo 30,000 bay ahayd waa ilaahay mahadiis intii ka dambeysana cusbitaalkaas hadda waa iska kaamil wax yar baa haray naashnaashkii baa haray waxa kale halkan aan taaganay maanta rabnaa inaan noo dhagax dhigtid haddii alla yiraaho qaybtii qalliinka iyo qaybtii dhallaanka haweenka oo gobolkan uu caan ku ahaa inaanu lahayn waa waxa keenay marka inay dadku iskutashi sameeyeen anu waxaan toddobaad ka yarayn ayaa maxay ahayd Islaan Ciiso maanta garabkeen midig taagan iyo wasiirka Maxamed iyo madaxweynihii hore igu cusubeen anoo wali wasaaradda tagin oo ay bareen godob jiiraan inay u baahan tahay cusbitaal marka maanta waxay rabaloodka xafiiska antago fadhiisto wala xafiiska ma tagin marka waxaan ka wadaa arintu waxay soo socotoba maanta halkan ay taagan tahay cusbitaalada gobolka laga dhisay waxay ahaayeen 5 cusbitaal oo degmooyinka ah iyo 36 xarumood oo caafimaad ah iyo 32 xarumood oo caafimaad yaryar ah iyo hal cusbitaal weyn shaqaalaha guud oo gobolka Nugaal waa 639 weeyaan gobolkan inta ka shaqeynaysa godob jiiraan waa 80 caafimaadka shaqaalaha aba jooga waxaana loo diyaarinayaa 32 shaqaale dhaqaatiir waxba isku jira marka uu dhamaado dhagaxa maanta dhagax dhigaysid iyo qalabkiiba waa diyaar waxa kale hormeynayna ku sheegno dayactir in meelo badan laga sameeyo halkan marka waxa u diyaar ah in loo sameeyo qalabka korontada oo ah maxaa solar iyo farmashiyihii iyo maxay biyaha iyo intoo dhanba in dhamaystirkooda ay hay'aduhu ay noo keeneen oo la dhamaystiri haddii alla yiraahdo